madaxa caafimaadka ee adduunka WHO Tedros Adhanom ayaa ka jawaabay eedeyn ka timid dowladda federaalka Itoobiya ku eedeysay Tedros inuu gacan siinayo gobolka uu ka soo jeeday Tigray. taliyaha ciidanka federaalka Itoobiya Birhanu Jula ayaa ku eedeeyay Mr. Tedros inuu ka shaqeynayo hub la siiyo Tigray waliba taageero diblomaasiyadeed u fidiyay. Tedros oo horey u soo noqday wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya xilal dhowr ka soo qabtay dowladii hore ee xisbiga TPLF. hase yeeshee Tedros waxa uu qoraal ku soo qoray ku sheegay bartiisa Twitterka in isagu taageersan yahay oo kaliya nabadda. Tedros ayaa sheegay inuu si weyn uga murugsan yahay xaaladaha ka jira dalka Itoobiya waliba shacabka badan ee ka qaxay dalkooda, isagoo ku baaqay dhinacyada ku dagaalamay inay joojiyaan dagaalka. waxaana sheegay Tedros inuu weligiis ka shaqeyn jiray nabadeynta isla markaana uu xasuusan yahay dhibaatooyinka shacabka Itoobiya ka soo gaaray dagaalkii hore ay u soo mareen. xukuumadda Abiy Ahmed ayaa sheegtay in shacabka Itoobiya ay ka soo laabtaan meelaha ay u qaxeen. xukuumadda Abiy ayaa dhinaceeda u waday olole ka dhan siyaasiyiinta waliba saraakiisha ka jooda Tigray oo xilalka ka ah dowladda federaalka, gaar ahaan saraakiisha Itoobiya ku sugan Soomaaliya ka soo jeeda Tigray ayaa la sheegay in iyagu hubka laga dhigay. dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo maamulka Tigray ayaa horey looga digay inuu keeni karo dagaalo sokeeye salka ku haya qoomiyadaha dalkaasi ku wada nool oo haatan laga cabsi qabo inuu dalka intiisa badan ku baaho. haddii xukuumadda Abiy Ahmed ku guulaysato in arrintan ay wax ka qaban weyso, haddii laakiin guuldarro ay ka soo wajahdo, waxay noqonaysaa in qoomiyadaha kale ee dalka Itoobiya iyaguna qoryaha ay qaataan isla markaana meesha ay ka saaraan xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Abiy Ahmed. inkastoo aysan noqon, haddana waxaa jira warar hoose la isdhex maray oo sheegaya in ciidamada TPLF haddii laga saaro deegaanada Tigray iyagu ay noqon doonaan inay dib ugu laabtaan 30 sano kadib halkii ay joogeen jabhad isla markaana weerar ay ka fuliyaan gudaha dalka Itoobiya.